بسم الله الرحمن الرحيم aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyey waa afarta bisha maarso maalin arbaca ah dowladda iiraan waxay ka dharagsan tahay in abaabul xogan uu ka socdo dhanka iyo dowladda ciraaq si gaar ahaaneed kooxaha kurdiyiinta oo la doonayo kaarkooda in la adeegsado iyadoo ay taa ka dharagsan yihiin iiraaniyiinta ayaa duqayntii ugu badnayd waxay ku laba jibaarayaan dhanka iyo magaalada erbil lagu magacaabo saldhig maraykanka halkaasi uu ku leeyahay iyo xere ay tuhunsan yihiin in lagu tababarayo kooxa kurdiyiin calooshadu shaqaystayaal ah oo durba la bilaabay in laga shaqeeyo sidii ay kaga horgeli lahaayeen gudaha dalka iiraan ciraaq waa meesha keliya loo arki karayo in weerar dhanka dhulka looga qaadi karo dowladda iiraan maraykanka wuxuu soo saaray digniin dhanka safarka ah oo heerka saddexaad ah oo dowlado badan oo qaliijka ah waa jordan cumaan sacuudiga iyo imaaraadka carabta waxaa la yidhi marxalad adag ayay ku jiraan dowladahaasi sidaa daraaddeed muwaadiniintu waa inay ka fikiraan in halkaas ay u safraan sida wakaaladda wararka ee Reuters ay baahisay aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa ku cadaadinaya shirkadaha difaaca ilaa iyo $50 bilyan oo dollar hub gaaraya ayaa la sheegay in looga baahan yahay inay ku bedelaan hubkii ay u isticmaaleen ciidamada dowladda Maraykanka dagaalka ka dhanka ah dowladda Iiraan oo soo bilowday tani maalintii Sabtida ee la soo dhaafay shirkadaha marka waxaa lagu cadaadinayaa inay soo saaraan hub kale oo dheeraada si loogu adeegsado dagaalka waxyaabaha kale ee soo kordha haddii aan kula wadaago dowladaha qaliijka waxay la kulmayaan weeraradii ugu cuslaa oo kaga imaanaya dhanka iyo Iiraan xalay israa'il waxaa lagu garaacay gantaaladii ugu badnaa sida mas-uuliyiinta dowladda iiraan ay sheegeen qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa gantaallo cusub oo aan horay dagaalka loogu adeegsan dhanka sacuudiga marka aad eegto wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda sacuudiga ayaa arbacada maanta sheegtay inay soo rideen ilaa 9 diyaaradood oo daroonis ah oo la doonayo in lagu weeraro gudaha dalka sacuudiga kadib markii hawada sacuudiga ay soo galeen afhayeen ku hadlay ciidamada dowladda sacuudiga ayaa sidaasi sheegay waxaa dhinaca kale soo baxaya macluumaadka ku saabsan in la bartilmaamaysaday xarun hay-adda CIA da ee maraykanka ku leedahay magaalada riyaad oo boqortooyada sacuudiga ah telefishinka Fox News oo Maraykanka ka soo baxa waxa uu sheegay in la bartilmaameedsaday xarun hay-adani ay ku lahayd magaalada Riyaad waxaana loo badinayaa weerarkii diyaaradda drone loo adeegsaday ee lagu bartilmaameedsaday safaaradda Sacuudiga inuu haleelay qayb ka mid ah xarunta hay-adda sirdoonka ay ku lahayd isla safaaradda inkastoo aan la sheegin xarunta inay ku taalay safaaradda dhexdeeda iyo meel ka baxsan haddana waxaa la sheegay xarunta hay-adda CIA da ee dalka Sacuudiga in weerarkan lala eegtay waa markii ugu horeysay oo macluumaadkan bannaanka la keeno iyo in xitaa hay-addani ay xarun ay ku leedahay gudaha dalka Sacuudiga marka loo gudbo dhanka imaaraadka carabta wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka waxay sheegtay inay la kulmeen weeraro badan tan iyo bilowgii dagaalka waxaa kaloo ay sheegeen iiraan inay duqayso dhowaan qunsuliyadda maraykanka ee magaalada dubay taasoo micnuhu yahay in iiraan ay beegsanayso goob kasta oo maraykanka uu ku leeyahay gudaha dalka sultanka imaaraadka carabta laakiin macluumaad kale oo dheeraada ayaa soo baxay kadib markii dowladda qatar ay sheegtay inay xirtay unugyo sirdoon oo la shaqaynaya dowladda iiraan maalintii shalay Tucker Carlson wuxuu sheegay dowladda qatar inay qabatay wakiilo ka socday hay-adda sirdoonka ee Mossad oo lagu qabtay magaalada Dooxa kuwaas oo la sheegay inay diyaarinayeen qaraxyo iyo falal burburin ah laakiin warkaasi war ka duwan hadda waxaa soo saartay dowladda qatar waxaana ay sheegeen in hay-adaha sirdoonka ee dalkooda Mossad inaysan qaban balse ay qabteen 2 kooxood oo ka tirsan ilaalada kacaanka dowladda qatar waxay sheegtay in kooxahan ay ku howlanayeen howlo basaasnimo ah iyo falal qarbudaad ah sidoo kalena ay qirteen waxay dowladdu sidoo kale sheegtay ilaa iyo 10 ruux inay ka koobnaayeen 7 ruux waxa lagu eedeeyay falalka la xiriira basaasida iyo gudbinta xogaha goobaha muhiimka saddexda kalena waxaa la sheegay inay iyaga ahaayeen kuwa hagidda sameynayay mararka qaarkiina falalka qarbudaadda ka qayb galayay haddii saddexdan arrimood la isu geeyo marka sidoo kale waxaa jira warbixinno ay qoreen saxafiyiin ka soo jeeda maraykanka iyo israa'il kuwaas oo sheegay in qatar ay fulisay weerar ka dhacay gudaha dalka iiraan si ay kaga jawaabto weerarada kaga imaanaya iiraan imaaraadka ayaa sidoo kale la sheegay inuu tallaabadaas oo kale u qaaday sacuudigana diyaargarow uu sameynayo si uu u qaado tallaabo ka dhana dowladda iiraan laakiin marka warbixinadooda laga yimaado ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladahan inkastoo qaarkood ay beeniyeen inay ku lug leeyihiin dagaalka tooska ah ee lagula jiro dowladda iiraan macluumaadyada kale ee soo kordhay haddii aan kula wadaago maraykanka wuxuu si cad u sheegay in ka badan 50,000 oo ciidamadiisa inay ka qayb galayaan howlgalka soo bilowday maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ee dagaalka ka dhanka ah dowladda iiraan taliyaha ciidamada dowladda maraykanka ee Centicom ayaa si cad u sheegay in ciidamada maraykanka ee gobolka ku sugan ee maraakiibta wata diyaaradaha isticmaalaya dhammaantood inay ka qayb galayaan dagaalka waxaana uu sheegay in ay burburiyeen in ka badan 17 xarumood oo ciidamada badda ee dowladda iiraan ay lahaayeen dhanka hawadana ay iyaga ku sarreeyaan madaxweynaha faransiiska haddii aan eegnana waxa uu yidhi annaga kama aanan qaybgelin ansixinta howlgalka maraykanka iyo israa'il ee ka dhankaa dowladda iiraan taasoo ka dhigan dowlado badan oo markii hore arrimahan lagala tashan jiray oo reer yuruba inay daaqadda ay ka baxeen laakiin waxa uu soo jeediyey oo uu sheegay in faransiiska uu ka shaqaynaya dhismaha ciidan aad u xoog badan kuwaas oo dagaal la geli doona dowladda iiraan laakiin halkay ka dagaalamayaan ciidankan wuxuu sheegay inay soo celin doonaan xasiloonidii marinka hormus oo halkaas ay ciidamada iiraan ay isku arki doonaan waana sababta buu yiri loo soo diray markabka diyaaradaha ay ka duulaan ee faransiiska diyaaradaha rafaal iyo cutubyo ka tirsan ciidanka faransiiska si looga hortago in qalqal la geliyo amniga isticmaalka marinka hormus iiraan waxay sheegtay hormus inuu iyaga u xiran yahay cid u soo dhawaa kartaana aysan jirin wararka ugu dambeeya haddii aan kula wadaago waxaa isqabsanaya seeriga digniinta qaybo badan oo ka mid ah israa'iil iyo deegaanada gacanta ay ku hayso
ra-iisul wasaaraha dowladda australia wuxuu iiraan ka dalbaday inay joojiso weerarada aan caadiga inay ka geysanayso dalalka khaliijka si gaar ahaaneed magaalada abudabi dubay iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan dowladaha khaliijka sacuudigan waxaa goordha uu shaaciyey inay ka hortageen laba ka mid a gantaalada kruuska sidoo kalena waxay sheegeen inay burburiyeen diyaarada daroonisa oo lagu soo weeraray magaalada alqaraj dhanka gobolka naqab badda dhimatay ee koonfurta israa'iil iyo deegaano kalena waxaa la sheegay inay gantaalle ay ku dhaceen waa berigii maanta seeriga digniinta ayaa ishaysta xaafado dhowr ah oo ka tirsan deegaanada loo yaqaano abar galili iyo deegaano kale oo waqooyiga israa'iil dhaca magaalada talaafibna waxaa la sheegay inay ku dhaceen gantaallo faahfaahin dheeraadana lama hayo waxyaabaha soo kordha mar walba waan kula wadaagi doonaa insha allah markana aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyey wakaaladda wararka ee Mehr News Agency la yiraahdo oo ka soo baxda dalka Iiraan waxay shaacay ka qaaday Iiraaniyiinta inay qarkay u saaran yihiin inay doortaan hogaamiye cusub wakaaladda ayaa warbixintan ka soo xigatay xubin ka tirsan golaha khubarada oo la doonayo inay ka shaqeeyaan doorashada hogaamiye cusub waxaan ku dhownahay inaan dooranno hogaamiye cusub oo sare oo Iiraani ah inkastoo ay jiraan duruufo adag oo dagaal lagu jiro sidaas waxaa lagu yiri qoraalka wakaaladda ay baahisay iyagoo soo xiganaya mas'uuliin ka tirsan xubnaha golaha sare ee khubarada waxaa la raaciyay qoraalka waxaa la dooran doonaa bedel caqli badan oo geesinimo leh oo hogaamin karaya dalka sidoo kalena bedeli karaya ayatullaahi cali qamanaay waxay warbixintan ku soo beegmaysaa iyadoo saacadii lasoo dhaafay warbaahinada ay baahinayeen in la doortay hogaamiye cusub oo bedeli doona ayatullaahi qamani iyadoo wiilkiisa la sheegay in loo doortay hogaanka laakiin wakaaladan oo Iiraan ka soo baxda ayaa arbacada maanta oo 4 bisha Maarsa baahinaysa macluumaadkan dhinaca kalena dowladda Iiraan waxaa lagu warramayaa inay diyaarisay in ka badan 100,000 oo askari kuwaasoo la sheegay inay diyaar u yihiin inay ka hortagaan weerar dhanka dhulka haddii Iiraan lagu soo qaado ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa lagu warramayaa inay ciidamada si tartiib ugu kala qaybinayaan qaar ka mid a gobolada dalka si gaar ahaaneed gobolka Marivan Kurdistan waxaa lagu warramayaa ciidan badan dowladda Iiraan inay geysay iyadoo halkaasi dadka loogu baaqay inay isaga baxaan loona diyaar garoobayo suuragalnimada difaac weerar dhanka dhulka ah haddii Iiraan lagu soo qaado gobolkan wuxuu xuduud la wadaagaa dalka Ciraaq halkaasina waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq xooggan oo dowladda Iiraan ay ka war heshay lana doonayo in calooshad u shaqaystayaal kurdiyiin ah halkaasi laga soo abaabulo isla markaana weerar dhanka dhulka lagu qaado dalka Iiraan waxay xuduud dhanka dhulka ay la wadaagtaa ilaa 7 dowladood waqooyiga oo ay kala wadaagto Armenia, Turkmenistan iyo Azerbaijan xuduud ay la wadaagto dowladaha Pakistan iyo Afghanistan xuduudeeda dhanka Ciraaq iyo sidoo kale dalka Turkiga waxaan Ciraaq loo badinayaa inay noqon karto meesha kaliya laga abaabuli karo weerar dhanka dhulka oo ka dhana dowladda Iiraan wararka kale haddii aan kula wadaago waxaa jira qorshe dabin ah oo la doonayo inay ku dhacaan qaar ka mid a dowladaha khaliijka dhinaca kalena waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan ilaa iyo 3 arrin oo waaweyn in Iiraan lala damacsan yahay waa tan koowaade fawda gudaha in la abuuro oo kooxo kala duwan gudaha laga sameeyo lana taageero waa tan labaade in afgambi militari la qorsheeyo iyo tan saddexaad oo ah in dhinacyo badan ay ku lug yeeshaan duulaanka ka dhanka dowladda Iiraan si gaar ahaaneed dowladaha khaliijka inay dagaalka ay ku soo biiraan warbixin lagu daabacay wargeyska Israa'iil Hayom lagu magacaabo oo Israa'iil laga leeyahay ayaa lagu sheegay in qorshaha Israa'iil iyo Mareykanka uu qayb ka yahay in la diyaariyo xaalad ay dowladaha khaliijka ku soo biiri karayaan dagaalka kadibna waxaa dhici karta in Mareykanka iyo Israa'iil ay dagaalka kaga baxaan dowladahani khaliijka halka Sacuudiga Imaaraadka Carabta Qatar iyo Kuwait la sheegay in iyaga loo doon doono dagaalka ka dhanka dowladda Iiraan taasina waxay keeni doontaa in dhiig bax dhaqaale uu soo gaaro dowladaha khaliijka iyaga dhexdoodana la isaga baxo qaar ka mid ah khubarada carabtan waxay aaminsan yihiin tani inay dan weyn ugu jirto Mareykanka iyo Israa'iil waana sababta ay dowladaha khaliijka inta badan ay lugta uga siibanayaan ama ay u gaatamayaan oo aysan doonin inay si toos ah dagaalkan ugu biiraan waqti xaadirkan qaar ka mid a dowladaha khaliijka hadda waxay si toos u cadeeyeen inay isdifaaci doonaan oo ay ka hortagi doonaan weerarada dowladda Iiraan macluumaad kale haddii aan kula wadaago ee soo kordhay safaaradda Mareykanka ee magaalada Riyaad waxay mas'uuliyiinta shaqaalaha iyo qoysaskoodaba ay ugu baaqday inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan gudaha dalka Sacuudiga kadib weeraradii ugu dambeeyey oo ka dhacay boqortooyada Sacuudiga seeriga digniinta ayaa isqabsaday magaalada Qudus magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ku yaala dhanka koonfureed iyo waqooyiga Israa'iil kadib markii mawjado gantaale ah ee Iiraan ay ku soo weerartay goordhow dhinaca kalena ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqay ilaa iyo 10 markab oo shidaal qaada in ay waxyeello gaarsiiyeen xilli isku dayeen inay ka soo gudbaan marinka Hormuz Trump ayaa sheegay inay ciidan diyaarin doonaan Faransiiska ayaa ciidamadaasi ku soo biiraya Xisbullah waxay shaaci ka qaaday inay waaberigi maanta ay bartilmaameysatay magaalada Haifa iyo deegaanka Metula lagu magacaabo kana mid ah deegaanada dhacay xadka ay wadaagaan Israa'iil iyo sidoo kale Lubnaan Xisbullah ayaa maanta sheegay in weeraradii ugu cuslaa ay ku qaadeen deegaanadaasi dhinaca kalena madaxa hay'adda atomikada dunida Rafael Grossi ayaa wuxuu si rasmi ah u sheegay ilaa imika inaan lahayn caddayn rasmi ah oo muujinaysa Iiraan inay dhisi karayso barnaamijkeeda nuclearka ama ugu yaraan bom ay soo saari karto saacadihii ugu dambeeyey Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa baahinaya inay Iiraan soo saari karto ilaa 11 madax oo nuclear ah taasina ay ka hor imaanayso heshiiskii ka hortagga faafinta hubka nuclearka magaalada lagu magacaabo Beit Shamis oo galbeedka magaalada Qudus dhacda oo dhawaan Iiraan dukumdaakum ay ka dhigtay maanta waxaa lagu warramayaa in sidoo kale ay ku dhaceen burburka gantaalo la sheegay in laga hortagay
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan wuxuu goordhow telefoonka uu kula hadlay la taliyaha amniga qaranka ee dowladda ciraaq waxaana lagu warramayaa inuu kala hadlay dhaqdhaqaaq halkaasi ka socda iyo cawaaqibka ka dhalan kara bartamaha israa'iil magaalada qudus iyo deegaano kalena seeriga digniinta ayaa isqabsaday waxaana lagu warramayaa mawjado gantaalla ah inay ku wajahan yihiin muuqaal la soo bandhigana waxauu muujinaya israa'iil oo bartilmaamaysatay dhismo hotel oo ku yaala gudaha dalka lubnaan